waxaa loo sheegay inay bixiyaan xijaabkooda ama inay isaga baxaan kollejka ay wax ka baranayeen. Waxaa sidoo kale loo sheegay inay madaxooda qaawiyaan, balse nasiib wanaag waa ay diideen oo waxa ay doorteen inay isaga baxaan kollejka intii ay madaxooda qaawin lahaayeen oo ay niman ajnabi ahi arki lahaayeen. Waxaan ka hadlayaa waa 6 gabdhood ee dhawaan laga joojiyay college ku yaala dalka India. Muuqaalkeena maanta ayaad ku daawan doontaan. Fadlan inta aynu u guda gelin muuqaalka, waxaan ka codsanaynaa in aad share gareyso muuqaalkan, sidoo kalena aad follow dhahdo barta Rogal Media. Sidoo kale follow garee boggayga shakhsiga ah ee Cabduqaadir Maxamed. Waa aad ku mahadsan tahay daawashadaada. And this is so surprising that it is happening, and it has happened for almost a week now, that women have not been allowed, girls have not been allowed to attend classes in their college. Why? Because they want to wear hijab. Why are hijab girls being barred from their class? Simple question. Dood ku saabsan xijaabka ayaa sababtay in ay soo kala taagmaan kulliyadda haweenka ee gobolka Karnataka ee koonfurta Hindiya iyo gabdho muslimiin ah oo wax ka barta. 6 gabdhood oo dhalinyaro ah oo wax ka baranayay kulliyadda ay dawladda maamusho oo u dhiganta sida dugsiga sare ayay ku eedeysay in toddobaadyo laga joojiyay fasalka sababtoo ah waxa ay ku adkaysteen in ay xirtaan xijaabkooda. Macadku waxa ay sheegeen in kaliya ay codsadeen in ardaydu ay iska bixiyaan xijaabka marka ay ku jiraan gudaha fasalka, balse waa ay xirnaan karaan marka ay joogaan meelaha kale ee jaamacadda. 6 hablood waxa ay xirteen labiska kulliyadda oo dabacsan oo surwaal iyo shaar ah, balse waxa ay codsadeen in madaxa ay dabooshaan oo timahooda ay asturaan. Waxaan leenahay dhowr macallin oo rag ah. Waxaan u baahannahay inaan timaha iska daboolno marka ay xiisada ku jiraan macallimiintan, waana sababta aan u xirano xijaabka. Almas oo ka mid ah ardaydu ayaa sidaasi tiri mar ay u warramaysay warbaahinta. Ma ahan wax aan caadi ahayn in la arko dumar xiran xijaabka iyo indho shareerka, kuwaasi oo wajiga iyo jirkaba qariya gudaha dalka India si ay caqiidadooda u soo bandhigaan. Laakiin jawiga si xumaanaya ee sanadihii u dambeeyay ayaa horseeday in dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah iyo kuwa kale ee aaminsan diinta masiixiga ah ay khatar weyn dareemaan. Arrintan gaarka ah ee ka taagan Udupi oo ka mid ah 3 degmo ee Karnataka ayaa la xiriirta nacaybka diimaha kale. Falaqeeyaasha ayaa inta badan ku tilmaama gobolkan oo ah meel ay ku xoogan yihiin taageerayaasha ra'iisul wasaare Narendra Modi oo ah garabka midig ee BJP oo aad moodo meel loogu talagalay siyaasadda Hinduuga oo kaliya. BJP ayaa sidoo kale awood ku leh gobolka Karnataka. Dhacdooyinkii soo noqnoqday ee foojignaanta iyo hadallada nacaybka ah ee ka dhanka ah muslimiinta deegaanka ayaa sii fogayay gafafka diimeed, waxaana ay horseedeen kor u kaca kooxo cod leh oo ay hogaaminayaan dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo xaqiijinaya xaqa ay u leeyihiin xurriyadda diinta. Xaaladan oo kale, tusaale ahaan, macadka waxa uu sheegay in arrintu ay sii murjiyeen kadib markii la sheegay inay soo dhexgaleen kooxda loo yaqaano Campus Front of India ee loo soo gaabiyo CFI oo ah garabka ardayda ee kooxda Islaamiga ah. Almas ayaa sheegtay in aysan xubin ka ahayn CFI balse ay la xiriirtay ururka markii ay kulliyaddu ka joojisay in ay fasalada galaan oo ay waxbarashadooda sii wataan sababo la xiriirta xijaabka ay xidhan yihiin. Miss Almas ayaa sheegtay markii ay isku dayeen in ay xirtaan xijaabka sanadkoodii ugu horreeyay ee kulliyaddu loo sheegay in waalidkooda ay saxiixaan warqad ay ku hor istaagayaan in ay xirtaan xijaabka. Dhammaadkii December markii aan ku soo laabanay macadka inagoo xiran xijaabka, noolama ogolaan inaan fasalka soo galno, ayay tiri mar ay la hadlaysay warbaahinta. Maamulaha kulliyadda Rodi Gowoda ayaa ku eedeysay in 6 dumarka ah ay si bareer ah u abuurayeen dhibaatooyin iyo in ardayda muslimiinta inteeda kale oo ku dhawaad 30 ah aysan wax diidma ah ka keenin sharcigan cusub. Waxa uu sheegay in markii hore uu ku dhawaad 12 dumar ah ay doonayeen in ay xirtaan xijaabka, balse tirada ay hoos u dhacday kadib markii uu la hadlay waalidiintooda. Ma jirto wax sharci ah oo ku qoran buug ama dukumiinti sheegaya in xijaabku uu mamnuuc yahay, kaliya waxaana loo sheegay
in haddii iyaga loo ogolaado kuwa kalena ay dalban doonaan inay xirtaan dharka dhaqankooda ah, ayuu yiri Mossad Mana oo ah madaxa CFI. waxaan xaq baad u leedahay ama xaq uma lihid waa wax uu dastuurka ilaalinayo in lagu dhaqmo si waafaqsan qodobka 25aad oo damaanad qaadaya xurriyadda diinta, ayuu hadalkiisa ku daray. Master Raja waxa uu sheegay in ay macquul tahay in macallinku uu rabo inuu ilaaliyo muuqaalka wajiga ardayga si uu u qiimeeyo inay casharrada raacayaan iyo in kale. kulamo dhowr ah oo dhex maray mas'uuliyiinta kulliyadda, wakiilo ka socda dowladda iyo ardayda gadoosan ayaa lagu guuldaraystay in lagu xalliyo isfahamkan ka dhashay xijaabkaaga fur iyo ma furay. halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa warbixinteeni. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, hana ilaawin inaad share garayso muuqaalkan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.